yarada iyo ciidanka waxaa kaloo la salaamo odayaasha dhaqanka iyo gabdhaha haddii alla yiraahdo galabta waxaan isugu nimiday waa wax waajib ah oo waajib nagu wada ah inaan iska wada celino cadawga ragga hore u soo bilaabo hawsha meel fiican ay soo gaarsiiyeen mahad ka gaarto ragga yimiday iyo ragga soo socdana waxa laga rabaa meesha ay galabta joogto inay ka sii wadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan mar dhow guusha aan gaari doono goboladan hadda la sheego gobolada dhexe ah oo beeshan hawiye ay degto xoogeedu inaan mar dhow laga wada xoray doono inta harsan oo hadda maqana waa soo socotaa ma maqna oo imaad doonaan taasna aan niyada ku haysano annaguna aan sii gaarsiino sii wadno insha Allah waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow in dalkeenu xor noqdo oo dad badan oo walaalihiina oo gobolada hadda kale qaybo kamid ah degan oo culays ku saaran yahay jira in laga wada qaado waxaan idin sheegaa nimankiina inta fadhiya raggaanu waa soo shaqeeyaan cadiguna waa iska soo xoreeyaan meesha qoryo weynaanina nimankiina waa noo muuqdaa ayagoon garab haysanin oo adinka idin haysanay iska soo gaarsiiyaan meeshan hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwa kale oo imaad doona nin raga dagaal doob galo oo waliba kan ugu muhiimsan waa dhintana wax la yaqaan waay cadigu ka adkaado wax xoreeyeen wax la yaqaan waay laakiin waa soo laabto wallahi qof laga yeelay inay sijir meel oo laabtaan naga dambe annagu waxaan galabta diyaar u nahay saan xildhibaan ku nahay saan wasiir lagu leeyahay si dhalinyaro iyo gabdho intaba cadawgaasaan ka midaysannahay waa u wada soconaa loo kala hari maayo dagaal aan micno lahayn oo qabiilaaho yar yar oo ceel la isku haysta iyo xoolo la kala qaado iyo waxaas dagaal ma ahayn dagaalka dhabta waa kan kaas kibir waa marka ciidahu rag u doo oo aan laga dirgo markii ilaahay lagu suuri lahay oo ka warqabnaa dadku ay isdulmi jireen dhibaato isu geysan jireen waxa weyn ma ahayn oo lagu mana kala tiiro dadka deegaanna waa ka dhaxeeya dhalashana waa ka dhaxaysa waa la wada dhaqnay waana la isdilay dhib ma lahayn kuwa laakiin dhaqanna nagama dhaxeeyo deegaan nagama dhaxeeyo meel ay kiimideen cidnama taqaano waa dad dalkeen in lagu canshuuraan wax walba oo xumaan ay sameey karaan ay sameeyaan raba wax badanna waqti badanna waa nagu soo qaadatay laakiin tawfiiqda Ilaahay hadda uu waafajiyay nimankii soo bilaawna waa ku maadsan yihiin annaguna waa isdaba dhigi doonaa haddii alla idmo waxaan rabnaa insha Allah ragiina qoryaha wada saacada aan naga xigta guusha saacada naga xigta in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado waxa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah waliba iyo murusada saddexduba deegaan kaani dariska yihiino halkaanay wada deegaan meeshan aan joogno iyo agaarkeedan waxa isu keenay waa walaalnimada iyo deegaanka iyo cadawga soo qolo oo hadda dhaafana aysan jirin oo leeyahay adinka waa ii fiicantiin ii jooga waa wada ogna cid oo dib u geysan ma jiro beelaha kale oo deegaanada nagu xiga deegaanna ayaguna sidoo kale ay hawsha u jiraan ama bari naga ahaato ama waqooyi ha ahaato waa ka wada socdaa dagaalku meel laga jeefaaho ma jirto meesha anaga nagu aadana xil naga saaran yahay oo qolol meesha ku aadana xil ka saaran yahay isku qabiil anaga ah isku deegaan anaga ah cadawgaasna u midowno oo iska wada celino inta noolo ka soo laabata hadhow waa la sheekaysan doonaa hadii alla yiraahdo ninkii si fiican waxay celsiin ninkii oo doqonnimo loo arkaba waa la sheekaysanaa waxaa soo aragtan dawladda aan wax weyn ka sheegi mayno laakiin ay leedahay inaan sheegna adana meesha ku jirta sidii la rabay iyo inuu garab istaagto dadka deegaanada degan oo cadawgaas ku kacay waxba ka dhiman ciidamada waxba qorsheeynaa ay waxay la fadhiyaan gaashaandhiga iyo xamar hadii la qorsheena waxa la qorsheeyaa meesha dagaaladu ka socdaan qof xogaalka oo joogta oo cadawgu meesha joogay kala og iyo meesha ugu daran iyo meesha in laga qabto rabta
waxaan leenahay dawladdu ha timaado saraakiisha ciidamada iyo kuwa ugu sarreeya difaaca ha yimaadaan ha gacan siiyaan dadka shacabka oo macawisleyda ah oo deegaanka degan oo cadawga in iska celisan raba adana intaasan leeyahay waxaan noo ballana guul iyo inana gadaal soo fiirin Allahu akbar Allahu akbar Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh